Bismillahirrahmanirrahiim. Daawada waxaad ku soo dhawaataa warka TV-ga Galmudug. Qodobadiisana waxa ugu waaweyn. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxa uu shaaciyay xilliga rasmiga ah ee bilaaban doonto imtixaanaadka dugsiyada waxbarashada ee Dowlad Goboleedka Galmudug. Wasiirka Dastuurka ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka warbixiyay shir loogu hadlayay arrimaha dastuurka oo dhawaan ka qabsoomay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka hay'adda USAID ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada Washington. Dhaqaatiir u dhalatay dalka Cuba ayaa waxa lagu afduubtay magaalada Mandera. Gudoomiyaha mu'assasada Macalin Nuur ayaa maanta waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Gurceel. Akhbaaraadka dibadda warkana waxa ugu waaweyn madaxa guddiga siyaasadda ee militariga Suudaan ayaa sheegay in Cumar al-Bashir lagu maxkamadeyn doono gudaha dalka Suudaan. Intaasi daawada waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka TV-ga Galmudug. Haatan waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo dhan.